وكاسا وحلي نينك وانول يهي هلا غارسيو غاريغا هلا سارو هلا سارعيو مرحومك الله نحرسته wuxuu ku dhimanaa dhex inta isbitaalka aan la geenin adiga bacdama gurigaaga aad joogtid oo meel amni aad joogtid maxaa keenay inaad biskoolada raaciso مدن قدومي بالصلاة أنا حبض مرة ma had in la quursaay ma dareema maxaa xabada keen inuu rido دراولا أنا برديس هو كمان عسير marka waa la isdhigi karaa maanu dilkaas inuu ka sacay ومعقول ninka markuu u dhintay inuusan cararin baxsanin gaariga lagu qaaday asaga uu keenay askariga uu xukumayay uu ku yiri ninka isbitaalka asagana uu tagay mahad daahir caraale sargaal xigeen ka tirsan hay'adda nisa ayaa loo haystaa dilka marxuum Cooromale saaxiib kula jiray safka sirdoonka kana mid ahaa ciidan uu taliyo unug u ahaa sajuuda ayuuna uga dhuftay baalooto uu ka riday bastoolad biljim ah 12kii bishii 12aad 2025 xilligaasi oo askar ku sugan goobta ay wadeen waanu i dhexdhexadin eedeysanaha ayaa u tagay XW Nisa marxuum Axmed Yuusuf Aadan Cooromale oo sali ku jiifay xilligaasi isagoo hadallo kulul adeegsanaya ayuuna ku amray inuu ka kaco gugushii uu ku jiifay goobtana uu firaaqeeyo marxuumka ayaana iska diiday amradaasi balse mahad ayaa iska soo jaray bastoolad biljim ah muran dheer kadib ayuuna hal baalooto wejiga uga dhuftay marxuumka taasi oo sababtay geeridiisa waxaana falkan uu ka dhacay degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ma eedaasi Axmed Yuusuf Aadan kasaad u dishay ma gashay mise ma galin dooda ka qabtaa مدن قدومي دوت شرعي ka qaba aad akhrisay waxa ku qoran inaan dil bareer oo kasa aan geystay mana ahan Axmed Yuusuf Aadan aniga ugu dhintay oo la igu sababay laakiin kas ma ahayn dagaal nagama dhaxayn xaalad nagama dhaxayn carar nagama dhaxayn caqdad iyo ciifo kale nagama dhaxayn inaan shaqo wadaagna hoo ahay goobtii aan ka wada shaqaynayno shaqada aan ka saarnay aan ugu imid gaari aan ka soo degay Cabdibilaa oo aniga aan waday furihii gaariga iyo bastooladayda iyo telefoonkeyga aan u dhiibto waxaan ku yiri casirad tukanayahay alaabtan ii qabo asagoo jiifan soo kor istaagay telefoonkii iyo furihii iyo xarigii furaha ku xirnaa iyo telefoonkii oo isku gacan ku hayaan u dhiibay inaan weysa casir aadan rabay markaan laabtay si laabanayna asaguna bastooladii gacan telefoonkii iyo xarigii oo isku qabtayna anna aan gadaal u jeestay si laabanayna xabada dhacday وياابay xabadu meel ka dhacdana qowaayay waa soo noqday xaqiisan soo fiirshay in xabad asaga ku taala arkay bastooladina meel noo dhaxayd ay taalo xabad kale si qalad ay bastoolad u qaatan ay bastoolad ku taqraaran tahay ninkii in bastooladii xabadan ka dhacdo waan fahmay furihii gaarigan oo riishada bastoolada wali ku jiro ninkii waan qaaday gurmadan u fidiyay gaariga aniga aan meesha soo dhigay shaqada aan ku haynaan saaray sargaalka shaqada iga sareeyaan wacay warniyo dhibkaas dhacay gadaal igu imaan ku yiri goob dhinaca gaalo shaqada aan ka haynay sarkaalkii ay yimid bastooladaydi aan u dhiibay dareeskayga aan u dhiibay gaarigiina askariga waa saaray isbitaalaan u diray sidaas kadib darawal sarkaalkii aniga aan hubkayga ku wareejiyay aan isii wareejiyo sarkaalkii ka sareeyay uu sii wareejiyay saasaan xabsi lagu keenay waan gudoomiye kaftamaysan miya maya alaabtaada ma hubkaaga inuu dhigto maxaa keenay waa weysaysanaha ay qabaan ku irwo jiifay anna waa taagnaa salaada casriyaal aala taagnaa gaarigan ka soo dawo meesha ku soo baakimay yarkii ila socda tubada gaariga gadaashiisa ah weyso u aad war anna waa weysaysanaha ka saaxo ay qabaan ku ir alaabtan telefoonka bastoolada furaha gaariga wax dhan aan u wada taagay soo jiifo telefoon fiirsanayo oo kasaas gadaacada u jiif gacanta xaggayga soo xigtay telefoonka ku haya gacantiisa shashay oo alaabtii iga soo qaado korkiis markuu soo marsiinayo shashadiisa inuu dhigay rabana xabada dhacdo marka xabad oo furan oo amaankeeda furanta u dhibaysay ma ka ogeyn amaankeeda furnaasheeda shaqaan ka imid airportka qof u doonay gudaha airportka markaan galay bastoolada baarista booliska aan uga tagay gudaha aanu joogo dadkii aan soo qaadi rabo diyaaradda soo saarnaana way daaheen leeyri shaqadaydiina la iga soo wacay si kadisaan u soo baxay bastooladii meeshii booliskan ka soo martay ma aana fiirin sintaan iska soo gashtay markaan imid ayad casr lagu jiraa imid casr inaan tukado degdegsino shaqan in aadna waa rabay saasan ugu dhiibin ninka bastoolada wax ku jirina ma ogeyn Allahu a'lam yaa kul isticmaal bastoolada adiga qof ma ila isticmaal halkaas maro meesha baaritaanka aan dhigay bisig gacanteeda ka baxdo eedeysana mahad daahir caraale maxamuud xafiiska xiraarinta wuxuu ku eedeynayaa inuu dil bareer ah oo kas ah oo waliba si ula kac ah u geystay Allah u naxariistay ekis marxuum Nisa Axmed Yuusuf Aadan Cooromale eedeysanaha ayaa wuxuu u yimid Allah u naxariistay marxuum Axmed Yuusuf Aadan oo meel gogol ah iska jiifo barkintiisa barkan tartiib u jiifo wuxuu ku yiri meesha nooga kac marxuumka Allah u naxariistay uma jawaabin eedeysanuhu wuxuu sameeyay bistoolad uu haysto la soo baxay xabadu raacsiistay markuu raacsiistay askar meesha joogtaa waxay ku yiraahdeen
war ninka xabadda ka daa xabadda ciyaar ma gashee wejigu xabad kaga dhiftay kadibna waa cararay balse hadda asigu wuxuu sheegayaa inuu gargaar u fidiyey inuu isdifaacay inuu salaad dukanayay waxaasoo dhan wuxuu isku difaacay waa beentiis askar ku sugnaad guriga dilka uu ka dhacay ayaa garsoorka ciidamada qalabka sida fadhigan ku siiyey warbixin mahad waxaa loo haystaa inuu axmed yuusuf uu dilay waa sax arrintaas markaas intaa joogtay see wax u dhaceen meesha aniga goobjooga ka ahay aye aniga marka hore meesha fadhiyay aniga marxuumkan waa jiifay waxaa noo imaaday nin la mahad daahir iyo wiil kale wada socdo haddii noo yimaada si kaftan ayuu u dhaheen sheekh wuxuu ahaay saliga nooga istaag marxuumka muusa jawaabin oo wax jawaaba kama bixin si kaftanana xabad biskoolad loo geliyey anigaa soo istaagay waxaan ku dhahay naga daaya xabaddaa nagu kaftamaysiin waana soo istaagay oo meesha waa ka soo istaagay waa laga daayay xabadda waa biskooladda hoosaa loo dejiyey bacdeen waa sii fadhiistay aniga haddaan fadhiistay isla markii haddana xabaddaan maqlaba saas wax u dhaceen guddoomiye intaad joogtaa intaas waa fadhidaan miya aniga waa fadhiyey marxuumkan dhinacii u jiifay sali yara ana dhinac ugu fadhiya asina waa jiifay marxuumka waa kaa guddoomiye saliga ma hore ugu jiifin mahad ma hore ugu fadhiyey saliga may gaari cad bilaahay wateen ay ku yimideen oo marxuumka darawalka ahaa waxaa keenayay mahad daahir iyo wiil kale oo wataana gaariga imaadeen way soo baakimeen way soo degteen wiilkii la kaftameen marka ay dhaheen nooga istaag meesha intaasaa dhacda guddoomiye wiilka muxuu leeyahay marka marxuumka muxuu dhahaa markaas marxuumka mausa hadlen telefoon iska fiirsanayo filna iska fiirsanayo mausa hadlen meesha ka istaaguu leeyahay haa eedeysanaha dhahayo ka istaag meesha marka isna ma jawaabin filna iska fiirsanayo kolley kaftan bay ahayd saan u maleynaa markaas biskoolada ku baacinaa miya biskoolada ku baacin waa miya haa markii soo istaagaa biskoolada raaciyay haa kaftanka maxaa biskoolada dhex keena ma ku baacinaa miya wallaahi waa wax iyaga ka dhexeeyo kaftan ah ma garan kara kolley su-aal daawud diinaysana yaa horreeyey marka hadalka ah meesha nooga istaag iyo raacsinta bistooladda yaa horreeyey nooga istaaga horeysa marxuumka muxuu yiri marka nooga istaag markii muxuu ku jawaabay muusa jawaabin telefoon iska fiirsanaa waa iska mashquulsanaa kadib eedeysanaha muxuu sameeyey eedeysanaha biskoolada ku qabtay aniga waa naxay waa istaagay waa ka qabtay oo naga daa xabadda ku kaftamaysaa ku dhaha okay marxuumka markii la dilay kadib oo eedeysanuhu dilay gargaar ma u fidiyo ma qaadi ma soo cararay ma cararin gurmuduu fidiyey oo wuu wacayay wuxuu wacayay raggii la shaqaynayo asiga ka sarreeya la hadlay nabaa xabadda iga fakatay imaadu dhahay way u yimideen cadbile wax ka saaray asina xabsi u soo diyaar garow ay doodeen meesha ka istaag iyo aamusnaan iyo xabad kadib eedeysanu raacsiistay kadib ku dhiftay dilkaas wuxuu ogyahay dilkaas ah mase dilka ma ah hortii qofka anaga qalbigiisa kuma jiri oo ma caddayn karo wuxuu asiga aaminsan yahay laakiin sheekh wuxuu ahay si kaftan xabaddaas in loo geliyey oo wax dooda kaftan oo dhibaataa meesha inaysan ka jirin baa caddaynayaan sharcigu ma ogol yahay in hub lagu kaftamo adiga ciidan hataa booliis hatee may marka waa la isdhihi karaa maano dilkaas inuu kas ahay waa macquul maadaama meesha aad joogtay wax khilaafa ama cadaawada ama buuq oo ka dhexeeyey labadooda aad og tahay miyaa jiro may labadani maadaama aad taqaanay meesha adeeg goobjoog aad ahayd marxuumkana aad tiri marka xabaddu ku dhacaysa wuu jiifay muusoo istaagin ninkaana waa taagnaa dilkaasi qadar rabbi ha ahaado laakiin markaa fiirisid dil qasdi ah oo loo bararay miyuu kula muuqday mise wuxuu kula muuqday ma caddayn karo diin waxaa loo fadhiyaa saake waxaa geeriyooday axmed yuusuf aadan cooramala mahad daahiraan loo haystaa arrintaas adiga intee joogta markay wax dhacayaan seena wax u dhaceen wasa soconel ma daahir aye gaariga ka soo degan gaari cabdibalaa wadaan gadaalaa ka imaan guriga ima meesha oo dhismaha ka socda imaan oo askarta gadaal waardiga ka qabata imaan marka imaanay meesha soo gaariga ka soo degnay waa soo wada raacnay marxuumka meesha iyo salaad ma laamid wiila meesha fadhiyey ma aqaan magac isma aqaane meesha fadhiyey iyo marxuumka as ag fadhiyeen markuu imaanay mahad daahir waa soo soconay meesha saligaa soo galnay saliga soo galnay waxaan dhahnay marka meesha waardiyaa laga qabanaya meesha ka istaag markii ninkaan marxuumka ma bahadlinba istaagay waa istaag mid ma dhihinba marka xabadii mahad daahir basoo la soo baxay si ugu dhacday
meesha ka istaag maxaa la dhahay sababta maxaa loo istaajinaya meesha waardiya laga qabaya macnaha asiga askarta ma ahayn miya maxuu daraawal waaye macnaha waardiya soo kuma laha asiga guriga ma ka tirsanaa guriga ma askarta ka tirsanaa guriga ma odayga marka keeno guriga oday bas ha keenan jirnay waana celin jirnay macnaha meel banaanka waa miya meesha banaanka guriga albaabkiisa dambe waa macnaha gadaal meel isma ku socoto gadaal waa oo dhabarka dambe waardiya laga qabtaa dhabarka dambe joogan asiga waardiyaha ma ku jira miya daraawal waa maya askarta ka qabato daraawal waardiya ma qabto ma sirgaal xukumayo aha meesha xukumayo waa meesha ku fadhiya karabtiin miya may waardiya laga qabtaa macnaha meel oo waxa waaye waardiya laga qabto waa macnaha meel la jiifto ma ahan macnaha waardiya laga qabahay meesha waardiya laga qabahay marka ninkan daajir telefoon ugu filna fiirsahay ma bahadlim marka waa ka kacayo waxba ma dhaxmarin ma had in la quursaay ma dareema maxaa xabada keen in rido wallahi taas gudooy ma aqaan qorsi waas ma ogaan qalbigiisa kuma jirin ma iskoolada hubkan dhiibay uu leeyahay hub uu dhiibay ma jiro soo oo manaha axmed loo dhiibay oo maxuuk loo dhiibaya ma aan markaas fiisaqada ku maqnaa markii kowda hore marka imaanay oo xoogaa ay ninka meeska istaag dhow toona soo baxay batira asiismaha daahir waa ka tagay salaada soo istaagay midka booliiska meesha soo istaagay salaada meesha dhaxdooda soo galay aan markaa iska istaas casra la joogay fiisaqada aad ana marka maqana marka xabada maqlay marka ilaa ayo albaabka amal u jirto baa ku fiisaqadahay marka soo jeestin xaalka in ko inta xabad ugu taalo dhig baxa xabada markuu raacinaya la murmooy asiga marka xabad raacsiiso buuq ma jiro markaas yaa la murmooy asiga jawaaboy qof la murmooyay malahan muru meesha ma yaalin marka asagoo meesha jiifa xabad ku dhacday miya qof ka dhintay meesha jiifa marka xabad ku dhacay asoo jiifa ku dhacday miya meesha saaranay meesha ugu tumada asoo jiifa xabad meesha jiifa almana xabad ku dhacay ma arkiin macnaha markii fadhigiis markaan soo jeestay meesha kuwi ugu tagay xabad ugu taala ugu macnaha asiga meeshii loo fadhiyay meeshii fadhiyaa dhaqaaq kalma sameyn meesha ugu tagay wiisaqaad ka markaan soo jeestay iyo ninkii xabad ku taalo meesha jiifa ark adii ninkoo meesha jooga ma heeno maxaa kali fikir xabadaas in la rido ina fasirtaan rabnaa macnaha fahamkaaga maxaa xabada in la rido kali fikra guddi meesha dagaal ma yaalin be dagaal meesha ma jirin be sababta ina fahanaa rabnaa marka maxaa fahantaa adig markii ninka xabad ku dhacay ma hadlin be ma had waa baxay guduhu aad guri odagu aad markaad imaanaysaan oo falku dhacaya ka hor oo gaariga aad ku imaadeen marxuumka darawalkaha soo ma sax intii aad soo socoteen ma had ka maqashay ama kuu sheegay asaga iyo axmed wax dagaal inay ka dhexeeyaan may goobta markaa imaadeen wax buuqa oo sababi kara dagaal ama dhimasho sababi kara meesha kama dhicin soo ma buuq la wada may marxuumka markuu dhintay ma dadkii gargaarka fidiyuu ku jira soo ma xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ayaa maxdarka ku soo bandhigay caddeemo ku saabsan kiiskan oo maragmadoontada CCTV kamera ka mid tahay taasi oo laga arkayo sida ay wax u dhaceen mudan gudoomiye waa kan waxaa soo baxayo marxuumka Allah u naxariiste barkintaasoo wataa waa kan eedeysane mahad waa daba socya asigana mudan gudoomiye muuqaalkan si toos ah loo arkayo marxuumka eedeysana oo marxuumka toos u tooganayo maxaa yeelay kaamirada waxa waa meel luuq ah ayuu falka ka dhaca aysan kaamirada ku aadaneen balse Allah u naxariistay marxuumka ayaa soo degayo barkintiisa asoo wato wuxuu tagaa meel oo jiifar rabay meeshiisu tagaa oo jiifana eedeysane mahad daahir caraale ayaa ka daba tagayo meeshaas ayuu ku tooganaa waxa kaliya oo la maqlaa xabada dhawaqeeda waa kaas xabada dhawaqeeda kaliya la maqlaa laakiin aragti ahaan ma loo arkayo oo ku aadano kaamirada waxa kaliya oo kala arkay hadana markaan kaamirada waxay qabanayaan marxuumka Allah u naxariistay oo hal qaadan leeyahay oo gaari Cabdi Bilaah la saarayo dadkaas gargaarka u fidinayo eedeysana ka mid ma ahan waxa waaye dadkii meesha jooga askarta ahay ciidankii kale ayaa gargaar u fidinayo asiga markuu dilay waa ka tagay meesha waa ka baxsaday wakaas waxay leeyihiin ninka waa nool yahay hal laga gaarsiiyo gaariga hal laga saaro hal la saariyo ay leeyihiin balse marxuumka Allah u naxariistay wuxuu ku dhimanaa dhex inta isbitaalka aan la geynin eedeysana ma daari kamid ma dadka wado ee gargaarka u sameynaa gaariga la saaran kamid ma waxbaan ka qaado leeyahay waa beentiisa isku difaacay wakaas Allah u naxariistay marxuumka xabadu waxay kaga taalaa sujuudda maxkamaddu way arki kartaa barta sujuudda ay kaga taalaa halka eedeysana uu leeyahay anigoo salaad u socdo ayaan u dhiibay rabay bistoolad iyo furo marka bistoolad iyo furo markii salaad la aadayo hadii saas la isu dilay waxa waaye waa arrin cusub si barar ka soo dilay marka wax isku difaacay waaye waa beentiis waatana bistooladii uu dilka ku geystay uu ku dilay marxuumka Allah u naxariistay waa bistoolad saarnayn ah oo isagu uu ku qornaa eedeysana
sidoo kale qolofkeedii waa kaasa halkani waxa waaye goobta dilka uu ka dhacay barkintaasi waa barkintii videoga hore aan ku tusay maxkamadda baarihii hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka uga wakiilka ahaa kiiskan ayaa natiijadii u soo baxday la wadaagay garsoorka ciidamada qalabka sida ku-xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanla dhexe maxamed xuseen cumar saney ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha ay ku xukunto dil toogasho oo qisaasta marxuumka ah xafiiska xeraalinta eedeysanaha wuxuu ku soo eedeeyey aayadda 178 ee suuratul baqara iyo qodobka 434 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wadana gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eedeysanahan dilka wuxuu u geystay si jaas ah oo ku talagala oo kas ah oo waliba yaani aan gabasho lahayn eedeysana Mahad Daahir Caraale Maxamuud ayaa wuxuu u imaaday Allah u naxariistay Dablanisa Axmed Yuusuf Aadan Cawramale oo meel iska jiifo oo iska nasanayo taariikhdu markay 12 bisha 2025 abaara 9 saac bar galabnimo eedeysanaha ayaa wuxuu ku yiri gogasha iiga istaag balse Allah u naxariistay marxuumka jawaab kama siinine waa iska aamusay kadib wuxuu sameeyay bistoolad Belgium saarnayn ayuu la soo baxay xabadu raacsiistay askarti meesha la joogtay ee marqaatiyaasha amaanta ayaa waxay yiraahdeen war ninkan xabada ka daa hadalkooda waxba kama soo qaadine si toos u toogtay xabada wajiga kaga dhiftay mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh eedeysanaha markay eediisa maxkamadda u jeedisay wuxuu ku dooday inuusan dilkaasi si bareera u geysan ahayd si kama ah balse dil kama ah dil la dhihi kara ma dilkan maxaa yeelay bistoolada la soo baxo amaan la furto xabad la raacsiyo la taago qof wajiga looga dhifto wax kama ah meeshaas ma jiraan waa ku talagal waliba rabitaankiisu ku sameeyay asigoo og hubkaas inuu cadilaayo ayuu si toos u toogtay mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh maxkamadda waxaan hor keenay marqaatiyaal ilaa 2 marqaati ah labadu waxay cadeeyeen in eedeysana Mahad Daahir oo u yimid Allah u naxariistay marxuum Dablanisa Axmed Yuusuf Aadan kuna yiri meesha ka istaag kadibna marxuumku ka aamusay sidaasna uu ku dilay labada marqaati waa isku raaceen marqaatiga koowaad salaad wuxuu sheegay in bistoolada la soo baxay xabad raacsiistay kula dhiftay sidoo kale isla marqaatiga labaad isla sidoo kale sheegay wuxuu sheegay in eedeysan u yimid gogasha iga kaciri bistoolad la soo baxay xabad raacsiistay toogtay labada marqaati marka waxay cadeynaysaa hadalkooda hadal sax inuu yahay sababtoo ah waa iswaafaqeen wax khilaaf ah kama jirin mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh waxa wax la yaab la ah in eedeysanuhu asigoo askariya haddana sarkaal xigeen ah uu dil bareera u geystay askariga uu xukumayay maxaa yeelay taliye unugu u yahay waa u yimid waa dilay waa ka cararay ma qaadin wax gargaarna uma sameyn mudane gudoomiye marqaatiyaasha maxkamaddu su'aal badan ay weydiiyeen oo ah maxaa ka lifay in hub lagu taago laakiin waxa filaa marqaatiyaasha qaarkood mid kamid ah wuxuu sheegay waa la kaftamay hub kaftan ma galo sidoo kale waxa la yaab lahaa ee cadeynaya in dilkaani si bareera u geystay eedeysanuhu bistoolada markii uu la soo baxay ee amaanka furay ee xabad raacsiiyay ee marxuumka uu ku dhiftay cadeyntaas ugu filan maxaa yeelay dilkaas ma naqan karo dil kama ah mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh eedeysana Mahad Daahir Caraale Maxamuud wuxuu si bareera oo ka soo u dilay Allah u naxariistay Dablanisa Axmed Yuusuf Aadan Cawramale dilkaasi wuxuu ka dhacay degmada Waabari mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh maxkamadda waxaan hor keenay marqaatiyaal cadeynayo in dilkaasi ahay dil kas ah oo bareera oo si kasa waliba oo eedeysanu u geystay oo ilaa 2 marqaati ah waxaa jiray qiraal garsoorka uu ku qoray eedeysanaha asigna uu ku sheegay inuu dilkaasi gacantiisa u geystay mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh waxaan si cad u cadeynay in dambi dhacay eedeysanuuna yahay qofkii galay si waafaqsan qodobka 163 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed sidaas darteed maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa maadaama eedeysana Mahad Daahir Caraale Maxamuud oo si bareer ah u dilay askari walaalkiis ah ee goob la joogay ee carro la jiifay ee waliba oo taliye unugu ahay
maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa in eedeysane Mahad Daahir Caraale Maxamuud ay ku xukunto dil toogasho oo ah qisaastii Allah u naxariistay marxuum Nisa Axmed Yuusuf Aadan Cawramale waliba maxkamaddu waxaan ka codsanayaa si degdeg ah inay ugu fuliso maxkamaddu waa maasanta qareenka eedeysanaha oo dilkan ku tilmaamay mid kama ah ayaa xusay in ehelada labada dhinac ay ka heshiiyeen kiiskan muwakkilkiisa ayuuna u codsaday in loo fiiriyo sifaalaha dambiga fududeeya mara gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh daahir waxaa lagu soo eedeeyay qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah dil kas ah markii aad loo akhriyo asagana wuxuu ku jawaabay soo afsan qodobka 104 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed dood sharci aan ka qabaa doodaas oo ah ninkaasi walaalkay Allah u naxariistay dilkaasi iga dhacay kas igama ahayn halka xafiiska xeer ilaalinta uu ku doodayo dilkaasi in uu kas ahaa nasiib wanaag xafiiska xeer ilaalinta wuxuu ilmaansan yahay sharciga laftiisa wuxuu qorayaa ama qeexayaa ama qabaa dilka in markuu dil dhacay inuu saddex noqon karo dil kama ah dil kas ah iyo dil kas dhaaf sida marka ka muuqato qiraalka eedeysanaha cadeymaha xafiiska maxkamadda uu soo gudbiyay ee u horeeyo baaraha kiiska iyo marqaatiyaasha oo laf dhabar u ah kiiskan ay cidda ugu mudan oo maanta wax laga weydiin karo marqaatiyaasha ay yihiin mara gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh markii aan la barbar dhigno ama aan la akhrino qodobka 24 ee xeerka ciqaabta Soomaaliya marka fiirino dilkaasi ma oran karno waa kas ma oran karno dil kas ah markii la geysanayo marka uu dhaco tiirarka laga rabo in lagu sugo waxaa kamid ah qofka dilaayo in ay ka dhaxayso cadaawad inay ka dhaxayso Mahad oo eedeysana ah iyo Axmed oo maanta marxuum oo cadaalad u baahan kana cadaalad u baahan Allah u naxariisto ma jirin lamana cadeynin wax cadaawad ah oo ka dhaxeeyay dhamaanteen waa wada qirsana waa tirka labaad in qofkii uu niyeysto in qofkaasi uu soo dilo ma niyeysan buu ninka dilo marqaatiyaasha laftooda ma aysan sheegin tuhun ay ka qabeen ama horay ogaal ay la socdeen in ninkaani uu raasanayo ama wax uu ka sameeyay wax ka dhaxeeyaan waa tirka saddexaad in uu u diyaar garoobo qofkaas dilkiisa u diyaar garoobo uma uusan diyaar garoobin taa waxa meesha ka saarayo inuusan u diyaar garoobin gaariga uu ku imaaday eedeysanaha marka falka dhacayo ka horo waxa iska lahaa oo furihiisa hayay oo waday marxuumka oo isku shaqo ahaayeen sadarteed dilkaasi marka meesha ka dhacay mara gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh anaga oo fiirayna cadaaladda labada dhinac ma oran karno dilkaasi wuxuu ku qotamaa 434 oo ictimaadayno qodobka 24 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo mar walba qodob kasto oo la soo qaadanayo la rabo in asaga basic looga dhigo 434 waxa ku qoran kaliya ciqaabta qofkaasi muddo laakiin qodobka 24 xeerka ciqaabta wuxuu qeexayaa fal baa dhacay sabab baa jirto natiijo ka dhalatay waxa la markaa natiijada iyo falka dhacay sababida u dhaxaysa in la qeexo taasna markaa waxay ka dhalanaysaa qodobka lagu soo eedeynayo eedeysanaha 434 inuu maanta maxkamadda xafiiska la hor imaado ma ahayna waxa ahayd qodobka inuu ku dhiso eediis 445 cadeymaha u horeeyay la soo gudbiyay waxaan u hormaraynaa eedeysanaha suuq qorsay dilkaasi kama iga hawir walaalkay gacanteedu ku baxay laakiin cadaawadna nagama dhaxayn sabab amaanta u dilan meesha ma yaal marqaatiyaasha goobjoogaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa garanayo saraa'irka naga qarsoon laakiin dawaahirka maanta u jeedno marqaatiyaasha asal looga dhigaya labadu waxay isku raaceen in uusan jirin wax khilaaf ay hore u xaliyeen in uusan jirin markaasi buuq taagnaa ama talo isku ibaadeen la yiri warmahadu ninkan ka joog inaysan jirin kaliya meesha ay imaadeen ninkan xabad ku dhacday ay arkeen haddaan u raacno xafiiska xilaliyaha laftiisa doonta haddaan u raacno hataa baaraha kiiska iyo marqaatiyaasha waxay cadeeyeen ninkan markuu u dhintay inuusan cararin baxsanin gaariga lagu qaaday asaga uu keenay askariga uu xukumayay uu ku yiri ninka isbitaalka asagana uu tagay sargaalka xukumayay uu yiri
falkaas ay ga dhacay biskoodan uu ku wareejiyay saasna uu isku dhiibay sharcigu isku dhiibay marka intaas isku dardarno baarikiiska ee marqaatiyaashii gudoomiye garsoorayaal dooda xafiiska xeer ilaalinta waxay noqonaysaa malawaal bay noqonaysaa 434 bata meesha uu ka baxaya taas daa kaga soo gudbo eedda xafiiska xeer ilaalinta ee cadeymihiisa gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eedeysanaha maanta maxkamadda hor joogo oo Mahad Daahir Caraale si waafaqsan qodobka 162 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed dabeecadiisa in wax ka tartara maxkamadda wax u soo gudbiyo 2018 wuxuu ku biiray ciidamada ku biira qaranka nabadda iyo ammaanka aan haysano iyo dawladnimada dadkii u shaqeeyay ee keenay uu qaybta ka yahay 8 sano iyo ka badan uu shaqeynayay qaranka u shaqeynayay tan iyo maalinta ayada ilaa hadda maanta oo eedan loo haysto oo Ilaahay ku sababay ma jirto wax taariikh ama rekoorka ugu jirto dil u geystay dhac u geystay dhaawac u geystay maxkamad la horgeeyay midna ma jirto taa badalkeeda asaga waxa ku yaalo dhaawac jirkiisa qayb ka mid ah la jaray dalka dibadiisa loogu qaaday uu dhaawacmay dhiigiisa uu shubay qarankiisa uu shubay taas marka waxay ku cadeynaysaa inuu san ahayn qof ku suntan ama ku astaysan fudayd iyo in uu falka noocaas si fudud ku geysan karo inta hadaa kaga soo gudbo gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaan rabaa inaan maxkamadda u soo gudbiyo heshiis laba darafa oo ehelada marxuumka Allah u naxariisto ay gaareen iyo ehelka marxuumka ay gaareen heshiiskaasi wuxuu ka soo baxay nootayada Sunni Muqdisho oo ku taariikhaysan 29 bishii 2025 buu ku taariikhaysan yahay heshiiskaas gudoomiye garsoorayaal wuxuu qeexayaa gacanta uu ku baxay marxuumka Allah u naxariistay eedeysanaha in falkaasi dhacay labada dhinac bay ka xun yihiin laga heshiiyay diyadii xaq u lahaa wali damkana qaybna la bixiyay oo la qaatay qaybta dhimanna qaabka loo bixinayo ay warqadda ku qoran tahay ayadana maxkamadda u soo gudbinaynaa maxkamadda inay naga aqbashana waa rajaynaynaa gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta maadaama uu iska cadiyay kiiskan cadeymaha loo soo gudbiyay yan nooc ay u taasho eedda xafiiska xeer ilaalinta si waafaqsan qodobka 119 waxaan rabaa in soo gabagabaysto maadaama xafiiska xeer ilaalinta uu saarnaa waajibaad sharci si waafaqsan qodobka 110 114 163 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo qeexayo in xafiiska ay khasab ku tahay fal markuu dhaco nooc uu doono ha ahaado in uu waafajiyo qodobada sharciga ee loo dejiyay inuu waafajiyo uu qeexo dilkaasi ama falkaasi dhacay nooca uu yahay inuu qeexo maadaama uu ku guul daraystay qodobada ayaga ah xafiiska xeer ilaalinta maadaama ay iska hor imaanayaan cadeymaha uu cuskaday falkan garmaqalka maxkamadda horteeda iyo eediisa ay iswaafaqin oo iska hor imaanayaan iswaafaqsanayn maadaama marxuumka dhintay Allah u naxariistay sanuhu ay ahaayeen dad shaqo wadaag ahaa muddana soo ahaa aysan meesha yaalin saa cadeynay markaasi duruuf sababi kartay ama baahi sababi kartay inuu dil ka soo geysto maadaama maragyadii la horkeenay maxkamadda goobjooga ahaa ayaguna aysan qeexin oo qirin dilkaasi kasbu ahaa maadaama heshiis laga gaaray falkaasi dhacay ehelada laba dhinacna ay wada fariisteen wili damkina uu ku qancay inuu qaato diyo uu qaato maadaama uu yahay eedeysanuhu nin u soo halgamay qaranka muddana u halgamayay had lafteedana u dhaawacan waxaan maxkamadda ka codsanaynaa marka koowaad inay maxkamaddu aydo doodii aan u soo jeediyey difaacayga labo in ay maxkamaddu aqbasho ogolaato heshiiska aan u soo gudbinay oo ah in laga heshiiyey falkaasi dhacay qodobka saddexaad in maxkamaddu wixii ciqaab oo fuulayso eedeysanaha ay u fududeyso xorriyadiisina ay siiso maxkamaddu way mahadsantahay doodda waa dhegeysiismo mudana gudoomiye waa dhegeysanaya doodda wax aan jirin oo badanna waa lagu soo daray sida inaan fakaday aniga oo aan marxuumka baacnaha aan gurmad u fidin xariiraliyo iga been abuuray ilaahayna been u sheegay been uga sheegay
أنا قعنتي ku qaaday gacanteedan gaariga ku saaray labada nin oo hadda marqaatiga meesha fadhidana waa la weydiin karaa sarkaalka iga sareeyay aniga oo shaqada iga sareeyay oo intaan wacay telefoonka aan ka wacay bastooladeyda aan u dhiibana waa la heli karaa haddana lambarkiisaan ku sii karaa waa wici kartaa ma fakan ma cararin anaa gaariga saaray wuxuu sheegay xeraaliyo inuu marxuumku dhex ku dhintay beenuu ka sheegay laba isbitaal la geeyay isbitaalkii labada ku dhintay martiiniya la keenay waa laga qaaday digfeer la geeyay asaguna meesha wuxuu la taagnaa in oo meel dhex ku dhintay anaa gurmad u fidiyay anaa gaariga saaray anaa amray gaariga in la kaciyo mana cararin bartii xabaddu ay iga kacday oo ninka walaalkay wax ku gaareen oo igu yimid sarkaalka aniga aan waca bartiyan busooladda ugu dhiibay waa fahmay adiga bacdama gurigaaga aad joogtid oo meel amni aad joogtid maxaa keenay inaad biskoolada raaciso qorayga madana gudoomiye busooladda aniga xabaddu ma raacin sidaan hore kuugu sheegay waa soomana gudaha airportkan shaqo u aaday qof gobol ka soo duulay oo inaan diyaarad ka soo dejiyay aan rabaan gudaha u gala gaarigaan watay baarista soko eega meesha baabuurta lagu baaran busooladda uga tagtay diyaaradii inay soo daahday gobol kale u duushaa la ii sheegay gaariguna shaqo lahay yarkii aan waday oo walaalkay ahay oo xaaskiisa aan u soo qaadi rabay waxaan ku riniyo taksigaana lacag siinaha taksigan qaado aniga shaqan eeda waa laabana meeshii busooladda aan dhigtay waa ka soo martay lambarkeeda bisan iska fiiriyo waa iska soo qaatay waa soomana been ku dari maayo meesha wax ka dhaceen busoolad aniga xabad kuma raacsan markaan fakiriyo xabaddan busooladdeeda waxa geliyey aan searchin u diro gadaal u fakirayna halkaas meel oo gacanteeda uga baxday oo baaraha macnaa aan u dhiibtay booliiska inay xabaddaas geli karto aan aamino ma ahane ma ogi aniga mana gelin korkiisana kuma raacsan aniga isaguna waa caddahay waa madowda ma waan isku qoonba dadka meesha fadhiya waxay leeyihiin biskoolada waa raaciyay ninkan ayakii allahood laakiin aniga allah ismaystay waa soomanahay korkiisa ninkaas xabad bistoolad aniga isaga dagaal in uwan raacsan inaan dagaalno maxkamadda waxaa ka dalbanaya maxkamadda sharafta leh waxaan ka dalbanaa mudana gudoomiye sida qareenkaygu oo hore uu sheegay aniga 2008 xabad iyo waxaan bilaabay dib u xoreynta dalka ilaa yowman hada waa u taagana 2008 ilaa ay hadda jaamacad ma baran iskool ma baran wax kale ma qabsan dalkan u shaqaynayo askari qaran aan ahaa intaas dhaawacyo kala gedisan iga soo gaaray ilaa hadda u taagana shaqada qaranka waa markii ugu horreeyay wax iga dhaceen baa garoonkayga iyo dib haddii loo raaco maxkamadda weliga lama keenin qof ma dilin qof ma dhaawacin qof ma dhicin qof ma handadin mid ma dulmin intaasna daacadan qaranka ugu shaqaynayay haddeertaana dhaawacaan u ahay inta bilood hadda aan xiran ahaanay dhaawacigii daawa ii socotay fisioterbiya ii socotay xanuunaan dareema intee laga hayaa lugaan dhaawac ka ahayo neerfo aan ka naqayo lugan ka dhaawac ahay oo altri go-ay oo dalka wax laga qaban waayo dibadda laga qaaday oo laga soo celishay maxaa kaaga dhacay xabadaa iga dhacay shabaab iga dhifteen marka waxaan codsanaa intaas anoo qaranka u soo shaqeeyey halkii qalada ugu horreeyay iga dhacana uu yahay qaladkan maxkamadda sharafta leh qaranka inay cafiyeen sifaalaad dembiga fududeey la ii fiiriyo xorriyaddeeda la siiyo weliba maxkamadda ay caafimaad ii dirto aan xanuunsanahay gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa gabagabada fadhigan soo xiray cabdiraxmaan gacan warbaahinta qaranka muqdisho.